xaflad si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay kasoo qayb galeen qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxaa musharaxnimadeeda kursiga beesha maqalsame ee tirsigiisu yahay hob eber 26 ku shaacinaysay musharax xildhibaan iftiin xuseen siyaad. ugu horeynba waxaa xafladda daahfuray ugaaska beesha maxamuud hiraab, ugaas saciid, ugaas maxamed, ugaas faarax, isagoona sheegay in iftiin ay tahay qof xogogaal ah islamarkaana beesha maqalsame matali kartaa. ilaahay baa mahad leh oo sukaan keenay noo fududeeyay. maanta waxaan soo dhaweynaynaa iftiin xuseen siyaad, musharax iftiin xuseen siyaad. صعب ويريا وحرب أنا سحوب وحن سودوينا iftiin xuseen siyaad وصومالي waxay jirtay waayahan waxay dhihi jireen qurba joog iyo dal joog iyo waxay dhihi jireen iftiin waxa waaye waa dal joog kama ay sabixin waa qof qoyina waarid ay yihiin koonfurtana ay waarid yihiin oo miday karta labadaba isu keeni karta. waa qof xogogaal ah oo burburkii iyo intii ka horreeyay dalka joogtay. waxaan leeyahay marka iftiin xuseen siyaad waa ku soo dhaweynaynaa. iftiin soo dhawow musharax aad iyo aadan ku soo dhaweynaynaa. waayahana cidda waxaa lagu yaqaanay inaysan sida dumarka iyo ragga loo kala qaybiyey inay ayuku waa horeba aysan dhaqankaas lahayn oo dumarka iyo ragguba ay isugu mid yihiin, dad isdhalay oo waarid iyo wiil iyo gabar ay yihiin. waxaan marka maanta jimcaha ilaahay kitabay inaan soo dhaweyno annagoo aad ugu faraxsan iftiin xuseen siyaad. aad iyo aadan u soo dhaweynaynaa. hambalyo iftiin soo dhawow, guulayso. salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. gabdhaha Soomaaliyeed markay hadlayaan waxay yiraahdaan waana la xaqay. horta adiga isxaqay ogaada intaad ku joogtaan ogaada aad fiirso horta intaad ku joogtaan ragga idin garab taagan oo maanta is garab taagan arka gabdhaha alla isgarab taagan gabadha musharaxada oo soo istaagtay waa inaad garab istaagtaan haddaad tihiin gabdhaha Soomaaliyeed. intiinaan kelimaa dhammaan waa gabdhaha Soomaaliyeed. intaas waxaan leeyahay horta gabdhaha mar walba idaacadaha ka hadloo yiraa ragga waa naxaqare lidima xaqare adigaan diyaar oo ka soo laaba intaas. aad iyo aad mar laba u mahadsantihiin. farxad weyn maanta waxaan inaan ka soo qayb galo kubashaan sharafta badan oo qiimaha badan oo dhammaan dadka bulshada ka kooban nooc walba ay ka soo qayb galeen si ay u garab istaagaan musharaxadda u ordaysa xilka musharaxnimo golaha shacabka. iftiin aad u mahadsantahay. iftiin intaa waxay meesha u timid u soo istaagtay inay garabkaad istaan. inaan hadalka soo koobo iftiin anigu waxaan ka mid ahaa dadka la soo shaqeeyey wax badan ka yaqaana xaqiiqdii. iftiin waxay ka mid ahayd dadkii isu halgamay kursiga maanta oo tartamayno 2016 gabdhihii cadaadad u tegey ee isu halgamay kursigan ayay kaloo ka mid ahayd iftiin gabdhihii maamulkii lagu soo dhisayo hobyo tegey oo wax ka soo dhisay ka mid ahayd. waxay ka mid tahay iftiin maamulka ururka haweenka ee beeshu ay leedahay gabdhaha ugu fircoonaya ka mid tahay. waxaan isleeyahay anagu inay tahay qofka xilligan hadda aan joogno. waxaan soo dhaweynaynaa gabadhanada marna walaasheen marna waalidkaan u nahay musharaxadda iftiin xuseen siyaad. waxaan leenahay soo dhawaaw. waxaan kula garab taagannahay taageero tolnimo iyo walaalnimo hiil iyo hoobale insha Allah. xafladan anigoo ka mas'uula beesha meesha sugunta qasaan reer UK aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. waana mahadsantihiin. soo dhawaa ma leenahay. sharafta leh ee aan la dhigay baa salaamintiin gabdhiina maadaama aan iska culusahay iska xanuunsanahay waa ka heli waayay iftiin xuseen siyaad doorashadii ay u soo bandhigtay maqlisame ee uu
xildhibaannimada marka alla ku guuleeyo annagana waa la garab joognaa aad iyo aadna waa usoo dhaweynaynaa jaceylkeeda keenan maahan oo iska xanuunsanaa aniga jaceylkeeda keenan marka waxaa rabaa maqaamintii maqlaysana dadkii soo hogaamin jiray aan ka soo jeedaa laakiin marka hadal badan ma sii hadli karo waa salaamintii ugu dambeyn musharax iftiin xuseen siyaad ayaa ka hadashay ujeedada ay xilligan isugu soo sharaxday kursiga sumadiisu tahay hob 26 iyadoona sheegtay in ay ka shaqayn doonto waxbaridda caruurta iyo sidii loo xoreyn lahaa deegaanada hob 26 aniga waxaan ahay iftiin xuseen siyaad waxaan ahay gabar aan dalka ka bixin hooyo ah joogtay wax badan xog ogaal oo ah wax badan waan ka soo shaqeeyay aniga anoo hooyo aan wax bartay yaraanteedii ka hor waxaan ku soo koray dadka qaxootiga ku soo koray ahaa xiriyaha dhadhaab dugsi sare oo soo baxay xamraan ka dhigtay jaamacadda sharciyada 2015 aan ka baxay marka waxaan ilaahay idinkiis waxaan ogahay in aan wax badan ogahay wax badan oo dayacana aan ogahay inkastoo nalaga qabo waxa aan ku nahay annaga gaar ma ahan Soomaali oo dhan waxay nala qabto waaye qaasatan annaga gabdhaha haddaan wax iska warqabnaa sababtoo ah hooyada dhibaato badan aan ku dhaceyso kan dhimanaya iyadoo ka dhimanaya kan xiran iyadoo ka xiran hooyo waxna way dhashay waa dhinac wiilkeedii ka gablamaysaa dhinacna asay ka qaadaysaa ninkeedii ka dhimanaya marka dhibaatada dhan Soomaali oo dhan inkastee nala qabto aniga waxaan rabaa ilaahay idmo oo xilkan ku guuleysto oo adinka aad igu garabsiisaan oo igu taageertaan kursigan inkastoo dad badan loo tartamayo haddana aniga malihi keliya aan helo waa ku qanacsanahay qofkii helo in aan kula shaqeeyo oo beesha maqlisama ka mid ah oo helo in aan ku soo dhaweeyo aan kula shaqeeyo oo sida aniga aan ugu qaban lahaa asaga aan ugu garab istaagay sidaas la mid ah marka waxaan leeyahay aniga wax badan aan ogahay deegaanadeena xor ma ahan waa la heystaa hadda ka hor barnaamij aan ka hadlayn wuu ku jiray saasoo kale bal dadka waaweyn iyo wixii ka soo daalay qof iyo qacda waaba laakiin generationka cusub in la badbaadiyo maxaa la dhahaa ii sheeg aan ku badbaadino buug iyo qalin waa ognaa ilmahana way dayacan yihiin xabsiyaday ka buuxaan meelo kale wada taagan yihiin in marka dhammaanteen waxaan ugu gudbi karnaa inaan maxaa la dhahaa gacmaha isqabsano oo yeelano marjac loo noqdo iyo meel dadka inta wax fahmaysa ee isugu timaado si dadkeena kale aan wax ugu qabano ama aan xil helo ama aan waayo ama aan xilka helo ama aan waayo taas ma ku xirna xilka waa codsanayaa maanta in aan wax samaysano oo aan isku imaan karno oo aan wax wada qaybsan karno taas ma ahan mid xil ku xiran marka anoo uga faa'iideysanayo jaaniskan marka insha Allah kursigan baarlamaanka 11aad hob 026 waan u soo istaagay haddii ilaahay ii qadarana waan helayaa haddii aan helin kulli qof kale oo maqlisama helaayo waan ku garab taaganahay marka intaasaan hadalkayga ku soo xirayaa assalaamu calaykum cabdiqani axmed abtidoon SDN TV muqdisho